اللهم صل على سيدنا محمد حديث با لو سو قاتا وان دمينيا جنده يا قيمهeda يا qaayaheeda oo hoygii ay u socon ilaahay waxay nooga dhigo ma awheena insha Allah والنبي wuxuu ka sheekay sallallahu alayhi wasallam hadith sahih oo ajiib badan wuxuu yiri nabigu saxaabadu ku meedin sheegaa buu yiri ninka ugu dambeeya ee jannada gala ummadayda ummadda Nabi Maxamed waa laba kooxood marka miisaanka iyo xisaabtu ay dhacaan koox acmaashooda wanaagsani ay badato oo jannada toos u gala ilaahay kuwa inaga dhigay rabbul caalamiin akram toos iyo koox acmaashooda xume ay badato laakiin kelmadii la ilaaha illa allah laabta ku hayo wali kuwa naarta lagu soo horeysiya wal ciyaadu billah iyagoo muslimiin oo muuminiin ah maxaa batay sayi'aadkoodii baa ka batay xumahoodii laakiin maxay wali haystaan kelmadii kalimatu tawxiid kalimatu tayyiba la ilaaha illa allah ba laabtoodii ku jirta kuwa waxa la geliyaa marka wal ciyaadu billah naarta dunuubtii ay galeen baa laga soo jaraa markaas aakhirka maxay ku soo dambeeyaan jannada waa la yaqaan kuwa naarta soo gala ilaahay naga dhigo yaa rabbul caalamiin wajigooda madmadowgii dabku ku yaala wali kama harin kaas waa la yaqaan marka kuwaas ahlu jannadu way yaqaan inuu halka soo maray marka ma idin sheegay Abu Muhammad sallallahu alayhi wasallam qofka ugu dambeeyay ee jannada galaya ummadayda ma idin sheegay Abu oranaya ee naarta ka soo baxaya de markaas uu ha noo sheeg Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waa nin boorey Nabi sallallahu alayhi wasallam naarta laga soo saaro jannada la keenay markaas uu dhageysto wuxuu oranayaa ninkii orana ilaahayow jannada albaabkeedu li jooji markaas uu raxmaan ku oranayaa wax kale weydiisan maysid may hadaad naartii iga soo saartay albaabku li jooji bal xogaha sheedaha ka daawadeed waas albaab jannadii la horkeenahay albaabka markaas uu raxmaanow bal albaabku iga furiyar daawada bal gudaheeda waxa ku jira oo wax kale weydiisan maysid jannada ku furo ma wax kale ku weydiisan ma soodiga naarta iga soo saaray u furo albaabka jannada albaabkii jannadu ha sheeda ka daawanaya nacam iyo waxa yaala meesha markaas suuranaya raxmaan bal yargeli ul albaabka ila raxmaanki weeyaan ilaahu bal halkan uu yargelaadeer halkan uu yargel markaas suuranaya kaale albaabkii baa la gelinayaa jannadii wuxuu arkayaa de ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar waxaanay wali hoo ili arag oo dhagi maqal iskaba daa arag iyo maqale mala awaalkeeduba aanu laabtaada ku soo dhicid marnaba markaas uu oranaya waxaan oo dhan rabbow yaa leh ninkii ba raxmaanka la sheekaysanaya markaas uu oranaya laka adigu qaado markaas uu oranaya aw tahza'u bihi ya rabbow haygu jeejeesidaan naar baa ka soo baxay waxaan uu malihiyo yaa leh walaka mithluha toban jeer taa aad arkaysid toban laabkeed adaa leh buu oranaya hal janno waxay u dhigantaa oo ku siiyay buuri adduunkii aad soo martay wixii yaalay oo idil adaa leh qofka ugu dambeeya ummadda Nabi Maxamed kamida jannada meesha uu ka galo ayaa waxay u dhigantaa adduunka waxa saaray khayraadka oo dhan adabada ma fahanay mise ugu celceliya ma fahanteen adduunka aynu isku xamanayno isku laynayno isku xiqdinayno isku xaasidayno ee iska keen taaglaaya ayaynu isku faanana daaradaha iyo turaaxadaha macna waa qofka ugu dambeeya ahli jannada ummadda Nabi Maxamed baale tala Abu Bakar halkuu jooga Umar halkuu jooga Aisha halkay fadhida Abu Hurayra halkuu fadhiya Nabi Maxamed halkuu jooga Nabi Muuse halkuu jooga saalixiinta halkay joogan marka kii ugu dambeeya hadii halka inta uu leeyahay marka miya adduunka uu istaahila mid aynu isku nacno miyu istaahila mid aynu ilaahay ku khasaarno miyu istaahila mid aynu aakhiradeena ku seegno miyu istaahila mid uu qalbi egegnaga dhaca miyu istaahila xasha la istaahila اصبروا قليلا وصبر الهي بين هرتقي دونا يوم القيامه ادكيسنا adduunka qofkii caafimaad lagu imtixaamo adkayso qofkii ubadka lagu imtixaamo adkayso qofkii zawjka iyo zawjada lagu imtixaamo adkayso qofkii rizqiga adduunka iyo maciishada lagu imtixaamo adkayso maalin qurux badan baa hadhay jannatu arrahmaan baa hadhay subhanahu wa ta'ala oo lagu qaboobi doona lagu degaan doona insha Allah ta'ala intaynu halkan aynu joogno haynu saamaxno roobkuna wuu inoo duyahay inuu saamaxno oo qulubta iska saamaxno inuu amraad qulubta oo dhan haynu iska saarno ilaahay dambigeena ha dhaaf
ودنبغا والدين الله هداف إلهي علماء وحنا صور دكتي أنت النور الله بركيه أنت لمتين إلهي دنبغا هداف وبتك الله ينو هنوني dhalinyarada Allah inoo haruuniyo guriheena guriyo qabo wadiinta Ilaahay lagu xuso Allah ka dhigo wadankeena dhul barwaaqa Allah inooga dhigo cirka roobka ku maqan Allah inoo soo diiyo khayraadka dhulka ku jira Allah inoo dilaaciyo qulubteena wax arkaya xumaha Allah ka fogeeyo saalixiinta macigeeda Allah ka dhigo kuwii diinta u qoma Allah inaga dhigo kuwii diinta barta Allah inaga dhigo kuwii diinta Ilaahay faafiya Allah inaga dhigo kuwa nabi maxamed macigiisa yawmal qiyaamah la mid noqdo Allah inaga dhigo Ilaahay kuwa fogeeyay inaga mid dhigo gaala iyo gaala joogba Ilaahay inaga mid dhigo qalbi wanaagsan baan Ilaahu ku weydiisanay cilmi caafimaad qabaan Ilaahu ku weydiisanay Ilaahay waxaan ku weydiisanay wax Allah wuxuu nabi maxamed ku weydiisay sallallahu alayhi wasallam waxaanu ka magan galnay wax Allah wuxuu nabi maxamed uu ka magan galay Ilaahu khaatimada noo hagaaji